السلام عليكم دمانتين مرلبات حيسدين هاي دوا صعطة حيسدين هوري وحدي هذا بروكر كان كشرحناي بروكر طبعا صفي أنا وصل شرحناي عددنا فهمت دمانتين وحشينيا حتى بقى حيسد ما أنت قاعدين إنه حاوليا سيدا بروكر أنفرن لها أما قابنا بروكر أفرن كرو سيدا أفرن لها في صومالها حاول هو أن وات سيدا يعني qaabkeen u furan karaa broker hadaba steps kan ayaan maraynaa insha Allah dabcan waxaan eegi doonaa hadduu ilaahay idmo FX premises iyo FPS bas eegi doonaa oo real account sida u furan laheeda find broker marka hore broker hel wuxuu doonaa ha ahaado ama ha ahaado FPS ama ha ahaado FPS ama waxa la yiraahdo FX premises ha ahaado marka hore broker wanaad turto marka hore calaamasatid kadibna waxa la yiraahdo maxaa sameynaysaa waxaa sameynaysaa oo laga rabaa read all the content of the website waxa ku qoran oo dhan wayna akhrisid oo macluumaadka website-ka ku qoran aska wada akhrisid ha iska gelin adoo macluumaadka website-ka aan akhrin ku qoran iyo wixii service bixinayaan iyo qaabka u bixinayaan waxaas oo dhan waxa la rabaa inaad eegtid kadibna waxa sameysataa standard variable or ECN mid dooro labaas ayaa wax la yiraahdo caan ah ama standard ha ahaado qaybta FPS ka ama variable ha ahaado qaybta wax la yiraahdo IC market-ka iyo FX premises-ka sidoo kalena ECN waa dooran kartaa labadaba xisadeeni hore ayaan noogu soo sharaxay kadib account furo oo open account leh wuxuu ku weydiin doonaa insha Allah email iyo full name-kaaga marka full name-ka magacaaga oo magaca passport-ka document-ka ku qoran ayaa laga rabaa oo suu qoraya inaad u qortid sidoo kale waxaa laga weydiin doonaa markii aad process-ka dhameysid passport-kaaga ama ID card-kaaga ama traffic license-kaaga iyo waxa la yiraahdo sidoo kale bank statement-ga sida Islamic Bank oo kale ama waxa la yiraahdo Islamic Bank oo kale ama Mastercard Premier Bank ee bixiso warqada ka soo qaadatay ha ahaato labada bangi midkood kadib waxa inta ka dambeeya waxa sugaysaa for confirming in wax la yiraahdo xaqiijiyo oo wax la yiraahdo ugu soo aqbalo unba wax la yiraahdo eegaysa hadaba aan u tago FPS markaan tagno FPS waa kana broker dabcan horeyna waan uga soo hadlay broker aan isticmaalo qaababka uu bixiyo oo dhan iyo soo u shaqeeyo halkan ay wax la yiraahdo ka helaysaa trading platform-kooda hadda rabtid inaad heshiisiin MT4-kooda iyo wax la yiraahdo ama mobile ha ahaado ama laptop halkan ayaa ka helaysaa sidoo kale deposit withdrawga qaabka u sameynaysid halkan ayaa ka helaysaa sidoo kale waxa la yiraahdo account-kaaga marka rabtid inaad furto halkan ayaa ka furanaysaa sidoo kale wax la yiraahdo inta account ay bixiyaan halkan ayaad ka helaysaa feel free to use any account type you like aad jeceshahay waxa la mid dooro ka jeceshahay dabcan centi micro wuu jiraa way bixiyaan laakiin zero speed ma ay bixiyaan standardka ayaa ugu weyn iyo ECN-kana ma ay isticmaal ma laga furo wax la yiraahdo ma ay furto يعني lagama furto dawladaha carabta oo sababtu waxa weeye swap ayaa wax baa jira oo swapki kama deynayaan way ku dursaanayaan waa qasab sababtu waxa weeye waxa kan broker inuu isticmaalaan dad fara badan oo islaama oo carbeed inay isticmaalaan ay arkeen kadibna ECN-ka inaysan wax faa'iido ugu jirin bay arkeen kadib waxay sameeyeen waxay saareen swap qof wuxuu leeyahay swap ku qaado ama wax la yiraahdo ama sidaas ka tag laakiin speedkiisu waa -1 pip asaga ayaga wax ka deynaya speedka ayaga wax ka deynaya waxa kale oo ku soo haray deposit-kana $1 ayaa ugu yar oo aad dhigan kartaa soo kale volume-kana 0.1 ayaa ugu yar oo lot-ka isticmaali karaysid ilaa iyo 500 oo lot ayaa isticmaali karaysaa leverage-kiisina waa 150 sidaas isaga akhri oo wax la yiraahdo mid walba dul tag standardka marka dul tagtid standardka marka dul tagtid standardka waa kan aniga aan isticmaalo waxa ugu yar $100 ku shubatid speedkiisana waa 0.5 volume-kana waa 0.01 ku siinayla 500 oo lot ah leverage-kana waa 1 to 3000 wuu fiican yahay laakiin speedkooda ma fiicna oo market maker ay inta badan sameeyaan oo hadda speedku waxa ugu yar 0.5 inta ugu weyn lama yaqaano waa horta banaan weeyaan
hadda zero spreadkana kan akoonkan ba aad u fiicnaan lahaa oo 500 baa ugu yar bay leeyihiin fixed spreadkiisana waa zero volumekiisana waa 0.01 leveragekana waa 1 to 3000 laakiin ma lahan oo lagama furto oo aniga dabcan waan isku dayay laakiin kuma furayaan brokerka aslan inta badan waxay awood u saaraan waxa ay ka faa'iideyaan hadday mar yihiin market makers ay leeyihiin waxa iyaga wax la yiraahdo faa'iido ka helayaan ayay dusha ka saarayaan okay open account halkan ka furo akoonkan kadibna waxa la yiraahdo email iyo password iyo ayuu ku weydiinayaa emailka ayuu ku weydiinayaa emailka marka gelisid iyo magacaaga kadib ayuu wuxuu ku siinayaa inaad gelisid baasaboorkaaga adresskaaga qaabkaas oo dhan inaad martid dabcan marka aniga waaba ii furan yahay oo emailkayga waa igu jiraa emailada dhan waa igu jiraan saan filayo kan wuu iga diidayaa haddaan furto dabcan wuu iga diidayaa haddaan furto kan waxay horaan u isticmaalay emailkan okay waa soma is already registered haddii emailka aad mar hore ku samaysatay mar labaad kaama uu yeelayo okay fps marka qaabkaas ayaa loo furtaa oo waxa la yiraahdo aan gudihiisa haddaan galno oo kale akoon aan ku leeyahay oo kale aan gudihiisa ka tuso kanoo kale hadda gudihiisa gey gudihiisa waxyaalaha ku arkaysid waxaa ka mid ah markii aad furatid halkan ayaa kaa keena qaabka processka iyo identificationka ayaa u samaynaysid gudihiisa markaa keena intaasoo xabo open account marka hore waa furatay emailkaaga waa inuu haddana aad aqbasho kadib numberkaaga kadib maxaa ku xiga identificationkaaga identitygaaga ku weydiinaya waxaa weye waa baasaboorkaaga documentigaaga iyo adresskaaga waxaasoo dhan intaas ku weydiinaya marka aniga mobilka muhiim ma aha waa ka tegey saddexdaa qaybood waan buuxiyey kadibna akoonka waa i furmay kaa waxaa la yihahdaa fbs qaybta standardka sidoo kale fbs withdraw optionskooda halkan ayaad waxa la yihahda ka helaysaa oo qaabka lacagta u dhiganaysid ulana bixaysa halkan ayaad macluumaadkooda dhan ka tegi karaysaa waa kana qaababkan oo dhan baa lacagta lagala baxaa laguna shubtaa visa card mateller screen perfect money bitwallet iyo agentiyadii dabcan agentiyadii qaahire kulahaayeen sidoo kale bronto iyo agentiyadii qaahire kulahaayeen ama dowladahan carabta ay kulahaayeen okay taas waxaa weeye waxa la yiraahdo fps haddaba tan soomaalida u badan tahay yaan rabo inaan xiisadeena ku sharxo maanta waxaa weeye waa fx premises kaas ayaan doonayaa inaan dul istaago xoogaa oo aan si fiican u sharxo insha allah waxaa la fps inta badan soomaalidu ma ay awoodaan inta badan wuxuu isticmaalaa agentiyada suyo la tacaamulaa iyo qofkii screen lehna wuu isticmaali karaa laakiin screenka hadda soomaaliya in laga joojiyaan umalaynayaa oo ma isticmaali karaan soomaalida netellerka baybolka intaas waa lagala baxaa haddaba aan u tagno fx premiska oo aqbalaya visa card iyo master card soomaaliya labadaba ah marka halkan meeshaan luuqadda ka bedelo english ka dhigo okay halkan markaad timaadid pagekan oo dhan baad akrin karaysaa spreadka lacagta ugu yar variableka waa 0.01 0.08 lacagaha way kala duwan yihiin spreadkooda halkan ayaad waxa la yiraahdo conceptiga macluumaadka fx premises oo dhan aad ka heli karaysaa halkan haddaad rabtid demo account ayaad ka furanaysaa halkan waa real account meesha ka furan lahayd sidoo kale wuxuu bixiyaa barnaamijyo badan ayuu bixiyaa ay ka mid tahay barnaamijyadu bixiyo bamk oo kale wuu bixiyaa okay
halkan waa platformskoodii hadaad dejsanaysid waa VPS ka laftooda serverka way bixiyaan maanta xiisadeena hore ku sharaxay wuxuu yahay service waxaan ku wadahay VPS server wuxuu yahay kaasna way bixiyaan MT4 labadaba waa kala soo degi karaysaa okay halkan supportiga ayaa weydiin karaysaa wixii macluumaad ah ama haddii mataqaanaa doonaysid inaad su-aal weydiisid ama qaabka u shaqeeyaan halkan ayaad wax la yihahdo kala xiriiraysaa all about halkaas oo wax walba aad ka helaysid all of them okay marka waxaan rabaa inaan account real ah ka furto wax la yidhaahdo FX Premium marka waa brokerka inta badan Soomaalida ay ku shaqeystaan wuxuu ka rabaa kaliya waxa weeye waa passport iyo bank statement kaliya ka rabaa bank statement kaasi waa Visa card ama wax la yiraahdo Mastercard bankigan Soomaaliya ku yaala Premier bankiga okay open your account leh open your account markaad raadid page ayuu ku keenayaa pageka waxaa laga rabaa inaad gelisid magacaaga iyo emailkaaga iyo dabcan passwordkaaga intaba inaad gelisay laga rabaa okay okay ma rabo halkan luqadda ka bedelo inta badan waddan carbeed baan joognaa waxaa laga yaabaa hadda saas ayuu carabi ugu soo qoraya haddaad luqadda rabtid inaad bedelatid halkan waa ka bedelan karaysaa okay halkan markaad timaadid halkan magacaaga ku qoro subxaana wataala Faisal ku qoro documentigaaga suu ugu qoran yahay ayaa la rabaa in ugu qoratid jaamac ku qoro emailkana Faisal abdikrim 81 gmail.com kan isticmaal emailkan baan hadda ka hor aan ku isticmaalo ma filaya asaasaan jeeniya Egypt magacana waxaa la rabaa magaca inuu baasaboorkaaga ama ID-gaaga ay isleeyihiin saa u qoraysid halkana numberka ku qoro 010335940 okay halkan username-ka ku qoro Faisal J oo kale ka dhigo Faisal J oo kale ka dhigo halkan passwordka waxaa ka dhigataa kan ka dhigo okay passwordkan ka iga dhig meeshaan I'm not robot-ka inaad robot ahayn ayaa cadaynaysaa haddii ku sii weydiiyo calaamado doodol ku leeyahay iska sii dooro wuxuu hubinayaa inaad robot tahay inaad ahayn kadibna register now dheh continue haye muxuu nagu soo diiday aan ku noqdo halkaa numberka aan geliyo halkaana magacayga aan geliyo halkaasna aan baasuuka igasto I'm not robot okay register now dheh inta badan kugu soo celinayaa haddii wax la yiraahdo emailkaaga aad hore u isticmaashay soo kalena passwordkaaga waxa ka wadaa emailka hadda hore u isticmaashay wuu kugu soo celinayaa numberka laakiin hadda hore u isticmaashay kugu soo celinayaa laakiin laasim waxa weeye email hore aad loo isticmaalin oo inaad gelisid halkan waa aragtaa wuxuu ku yidhi waa hambaliyo waa samaystaa con FX Premium saas ayaan ku samaystay marka processkay kale umaan wax la yiraahdo dhamaysanayaa kadib si aan wax la yiraahdo complete registration registration ku dhamaystirtid waxaad tagaysaa wax la yiraahdo emailkaaga ayaa tagaysaa haddaba emailkayga aan tago halkan aan ka eego emailkii waa kan halkan iga furan yahay warqadan ayay kusoo dirayaan verificationka ah ay ku leeyihiin thank you for creating FX Premium waan ku mahadsantahay inaad samaysatay FX Premium marka verify email dheh emailkaaga verify garayso kadibna waxa la yiraahdo toos wuxuu ku geenayaa page-kaagii aad lahayd FX Premium kadibna waxaa laga rabaa inaad adiga processka ku dhimanayd buuxisid processka maxaa kamid ah marka processka waxaa kamid ah si halkan ka arkaysaanba continue dheh easy what
hadda processka halkan waxaa ka arkaysaan incomplete inay tahay halkan waxaa la yiraahdo inay incomplete tahay yani hadhowdii haddii just in case aad hawshaada dhamaystirtid wuxuu ku leeyahay halkan confirm ayuu ku saarayaa oo in la aqbalay ayuu ku sheegi doonaa halkaas ayaad kala socon doontaa okay marka waxa la yiraahdo halkan waxa la yiraahdo personal detailskaaga waa maxay addresska ku qoran waxa la yiraahdo address ku qoran addresskaaga bank statementka ku qoran ayaa halka ku qoranaysa su'aalo kale Sheekh Axmed Saawi iska leh halkan tuuga darabtu ka boodi kartaa ma baahnid city qaahira leh state qaahira leh qaahira Egypt halkan zip code-ka waxa weeyaan postal code-ka waa 0020 ama 00252 Soomaaliya saas ay ka noqonaysaa okay halkan waa taariikhda dhalatay oo saxan baa wax la yiraahdo gelinaysa waxay doontaa ahaato oo kan baasaboorka ah ikan documentiga ku xareynaysa ay gelinaysa kadibna halkan waxa ku qoraysaa have you ever been politically exposed person no siyaasadda kuma jirin sidoo kale muwaadin Amerikaanna ma noqon haye labadaasba tag waan saaray halkan waa trading knowledge oo ku weydiinaya khibradda u leedahay suuqan select knowledge aad u leedahay suuqan iyo khibradda labadaba ku weydiinaya employment status waxaa tirahdaa tusahaan oo kale student iska halkan source of funka waxa weeye waa saving waan kaydsaday dooro select level of education waxaa doorataa high school ama batch ka tahay marka levelkaaga annual income-kaagana wuxuu ka yaryahay 50,000 ayaan leenahay estimated net worth-kaagana inta la qiyaasi karo sanadkii lacagta ku soo galaysa waa 0 ilaa 25,000 inta u dhaxaysa estimate investment-ga macquul inaad samaysid waa $100 ilaa $25,000 waa inta aad investment suuqan rabtid inaad ku samaystid oo maalgelisid suuqan forex-ka halkan waxa weeye select intended purpose of trading qaabka waxa la yiraahdo aad suuqan uga qayb qaadanaysid annaga waxaan nahay waxa la yiraahdo investment oo suuqan waa maalgashiyaal ayaan ka nahay oo waa maalgashanayna waana ku shaqaysanayna okay inta waxa weeye waa khibradaada iyo aqoonta u leedahay suuqa halkan waa personal detailskaagi labadaba waa soo buuxinay okay halkan waxa ku soo haray inaad gelisid documentiga ayaa gelinaysa halkan waxa weeye color of passport of color of your passport or front of ID color of copy of back of your ID labada waxa weeye ina passportkaaga horay iyo gadaalba ama ID-gaaga horay iyo gadaalba ka soo wartid oo halkan aad gelisid marka haddii passportkaaga haystid badan ID haysan kugu filan page hore passportkaaga kugu filan uma baahnid inaad gadaal ka soo wartid marka haddii aad haystid ID Soomaaliya ah ama wadamada kale ah labada dhinac ka koobiye sida ugu dir ID card okay halkan waxa ku soo haray residency-ga inaad gelisid proof of residence inaad gelisid marka proof of residence-ka waxa weeye tan ugu fiican oo aad gelin kartaan waa bank statement-ga Soomaaliya dadka Soomaaliya oo jooga visa card-kan aad qaadanaysaa Salaam Bank ama Darusalaam iyo waxa la master card-kan Premier Bank ka qaadanaysaa warqad ayaa raacsan warqadda raacsan oo timbareysan oo saxiixan halka geliya residency iyo wax kala haraadinba hadda dibaddan ama wadamada Afrika joogtina isticmaal wax la yiraahdo bank statement aad leedahay isticmaal haddii macquul tahay aysan ahayn warqadda koontada guriga aad ku bixisid ama warqadda caqdiga guriga aad ku degan tahay oo ijaarka ah oo magacaaga ku qoran yahay oo passportkaaga ama ID-ga waafaqayo geli kadibna waxa saa ugu dir labadaasba nooc waa samayn karaysaa okay trina account-ga waa ku soo haray halkan waxa weeye waa meesha ugu dambeysay steps ugu dambeeya mari doono account-kaaga select account type waa labadii aan ku dhigay variable wax la yiraahdo iyo ECN variable waxa weeye spreadkiisa waa $100
wixii ka badan wixii $100 ah iyo wixii ka badan ayuu aqbalayaa variable splittka wuuna ku furayaa marka adiga ayaa garanaya dabcan income-kaaga haddii aad $100 ku shubanaysid iyo haddii aad ka badan ku shubanaysid haddii aad ka badan ku shubanaysid waxa weeye waa ECN 500 baa ugu yar dollar inaad ku shubatiyo wixii ka badan markaas wuxuu ku siinayaa account ECN ah okay marka an ECN ba iska doorto halkan waa aragtaan wuxuu ku leeyahay $500 currency minimum deposit-ka ugu yar adiga intid waa $500 maadaama ku siinayno account ECN okay leverage-ka ku soo haray inta leverage ku gudbin halkan lacagta deposit-ka ku sameynaysid ma dollar ba ma euro lacagta yani adiga wadanka ku xiran tahay dad Soomaaliya iyo Europe joogtid aniga dabcan waxaa isticmaalaa dollar Soomaaliya dollar ay badan yihiin dad wadamada Europe joogtid euro iyo pound labada waa isticmaal kartaa ama euro laakiin dollar iska isticmaal halkan waxa la yiraahdo leverage-ka waa margin-ka ku soo sheegay kan ugu badan dooro wuxuu quweynayaa account-kaaga ayuu siinayaa fursado badan oo waxa la yiraahdo suuqa ku gali karo account-kaagana wuu xoojinayaa marka kan ugu weyn dabcan kan ugu yar hadaad doorato xataa he don't care 1 to 1 hadaad doorato adiga ayaa choice iska leh laakiin anaga choice-keena waxa weeye 1 to 500 ayaa recommendation ku bixinaa inuu qofku doorto waa 1 to 500 taas ayaan doortay okay waxaan hadaba ii soo hartay I declare that I have carefully read, fully understood, and accepted the current agreement, a privacy policy, and risky disclosure of FX businesses. طبعا waan soo akhrinay wuxuu yahay waan soo aragnay waan soo buuxinay halka tig inoo saarada kadib waxaad oranaysaa submit markaad tiraadid haddii documentigaaga oo dhan saan kuu sheegay processkan kuu sheegay martid wax ka yar 2 maalin ama maalin halkaas waxay ku noqonaysaa waxa la yiraahdo incomplete meesha incomplete ay tahay complete ay ku noqonaysaa ina fahanteen ay filayaa hawshan saas ay kugu dhamaanaysaa dabcan sidaas ayaana suuq ku soo galaysaa trading-kaaga saas ay ku samaysanaysaa hawshaadana saas ay account real ku noqotay oo aad ku samaysatay intaas ayaan waxa la yiraahdo ku soo gabagabeynayaa xiisadeena maanta waxa la yiraahdo sida account real aad u furan lahayd FBS waa idinka tusay FX businesses oo si faahfaahsan aan idinka sii tusay maadaama Soomaalideena aan u badannahay brokerka intaas ayaan xiisadeena maanta ku soo afjaraya insha Allah waana mahadsantihiin